السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ياسمين واي سو دواada walaalahay ما شاء الله تبارك الله. marar badan waxaa la isoo weydiiyey abaa yaasmiin dabiici alaabaha aagadiin maxay ahayd wax jilbaha lafa xanuunka dhabar xanuunka mandhicir xanuunka ma haysiin. ما شاء الله تبارك الله saalax isagaa shaqadaas haayo oo daaba dhuleedka iyo dabiiciga kusoo takhasusay inkastoo aniga wax yar maan dhaweyd iskool aan kasoo barta ما شاء الله. waan ugu taqaanin walaalaha gataan timely relief kaasoo kii oo mataqaanaa hormoonka iyo caadada saxaaye caadadka ku saxmatan qofka uur u yeelanayo ما شاء الله ilaaha ahay nimcadaas. kana waa kii maqaarka derma cleanse qofkii finan qaba iyo cabaay kana waxaa waa kii maskaxda xusuusinta ما شاء الله تبارك الله. marka marar badan la i weydiiyey jilba xanuunka lafa xanuunka muruq xanuunka saliidana ka shaqeynayna oo laga sameeyay saliid macsaro ashwagandha waxaa waaye ii sheeg daaba dhuleed oo ah ii sheeg India laga helayo China laga helayo America hadda laga bixinayo ka baxdo ما شاء الله. muscles and joints ku leedahay waxaa waaye lafaha iyo murqaha siiba jilba xanuunka iyo arthritis rheumatismada oo kaleeto iyo ala marinayaa taas. anagana waxaan aaminsanahay aniga iyo saalax aan soo baranay marka aad korka wax mariso dhaxdana waa inaad wax ka qaadato. marka sabar loo yeesho saalaxtan ka shaqeynayaa oo iyadana rheumatismada iyo jilba xanuunka iyo urun markii soo baxdana waa idin soo sheegayaa insha Allah. inta ka maqan isaga cabaayay ما شاء الله. tana soo hartay tan waxay la shaqeynaysaa hadii Ilaahay yiraahdo waa u jeedaa abdominal ee leedahay waa mandhicirka timely relief afka laga qaadanayo tana waxay la shaqeynaysaa ii sheeg mandhicirka markuu ku xanuunayo caadada aad qabtid oo kaleeto ما شاء الله. intana waxaa yaala aan xasuusinayaa suufka always-ka aad dhahdeen oo gashano waqtiga caadada. abaa yaasmiin maxaa markaas noogu soo celinaysaa waxaa noogu soo celinaa waxay tahay suufka always-ka aan gadano kiimikuu leeyahay kuuntadaada qiimaha kuu yeelato ee ka taxadar. dhaqanka Soomaaliya waxaan qabi jirnay mara inta jeexano aan gashano dhaqno qalajino aan gashan jirnay ani saas aan igu soo koriyay ما شاء الله. haddana kanna waa sidii oo kaleeto waa gashanaysaa waa dhaqaysaa waa suraysaa haddana waa gashanaysaa kuuntadaada mar dambeeto infection iyo wax maba arkaysid haddaadan isku arkinna hadda iska ilaali geedkaas isku ogow ما شاء الله. inta waxaa yaalo oo ka helaysaa caafimaadfiican.com lavender mist barfuunada la marsanayo annaga waa ka sakanaa kiimikada kaas waa kii isku buufinayo gurigana ku buufsan karto ما شاء الله. cidda cagaarka cunaan malabka ما شاء الله kulli waxaa ka helaysaa caafimaadfiican.com. walaalahay Soomaaliya Afrika joogaan hal iga raali noqdo marar badan la yiraahdo dadka Afrika inta uga tagtay Afrika the only halka wax aad ku heli kartiin waxaa waa in alaabteeda xagga ma soo gaarin hal iga raali noqdo laakiin maxay ahayd dad badan oo waxa jira ila soo xiriiro oo dhaha abaaya alaabtaasaan kaa gadanayaa hore ka soo dir Soomaaliya rabaa inaan u sii gudbiyo. marka haddii qof wadamadan jooga aad ka saysid oo Soomaaliya soo aadayo ama ay yaqaanaan waxaa leedahay fadlan alaabtaas hala ii soo gado Soomaaliya alaabteeda taas saasi ku tagtaa. inta kaleeto dad badan ii soo qor haddana waa ku soo celinaya waxaa la idhaha abaa yaasmiin ani Canadaan jooga alaabta ma soo gaaray ani Ingiriiskan jooga alaabta ma soo gaaraysaa yeesu ku soo gaaray. caafimaadfiican.com ee walaalaha dhan wax ka gataan informationka dhan meeshaas ku jira dhag hadaa gashato informationkaaga iyo sida ku gadanaysa kaarkaaga asaga boostada qiimaheeda waxeeda dhan ku soo saaraya ani shaqo ma ku lihibo yaasmiin alaabtan dir kaliya u leeyahay computerkaas ay soo bixayso alaabtaas saasan ku diraya ما شاء الله. hadda qofaa wuxuu gatay jimcadi timely relief qofkaasna waa ka saaya rukunkeyga waay ما شاء الله. laba xabaa gadatay timely relief qofka ugu horeeyaa tahay hal xabo oo waxaan kugu soo daray oo abdominalka oo mandhicirka ما شاء الله. marka halka waxa aan ka codsanayaa waxay tahay qofka saliidaas gadanaya saalax wuxuu yiri fadlan ku xooji saliidaas hadaa gadato digsi yara qaadaysaa biyo karkaraayo biyaha ku shubaysaa biyaha markay karkaraan baaqul yara qaade ama koob yaro shaax koobka shaax lagu caban ka wadaa laba macalgad ama inta saliida u baahan tahay aa ku shubanaysaa saliid saas aku kululayna markay kululaato atan mandhicirka marsane
haddii mindhicirka ahayn aad gadatay tan oo ii sheeg dhabar xanuunka jilbo xanuunka kor xanuunka kaas waxaa midaa gadatay aad ku shubanaysaa way qandiireen markay qandiirto qandiirkaas aad marinaysaa meeshii aad ku xanuunaysa fadlan saalax wuxuu igu xoojiyey uu yiri walaalaha ku xoojiye u sheeg please aa idin tuugaya saliidaas haddaa gadatiin microwave-ka yaa lagu kululaynin sababtoo ah waxaa ka dilaysaa nafaqada ka dilay fadlan microwave ha ku kululaynin daawada ee lahayd haddii kale ka dilaysaa marka biyo yar kululay koob yarii saliida ku shubo qandiirkaas meesha mari ilaah ka tuugaya in la ifahmo caafimaad fiican daadkaan aad waxa aad rabto meeshaasaa ka gadanaysa haa dad badan ay soo weydiiyey malabka dabiici miya malabka saafi miya malabka seewaay malabkaas shinnida aa laga soo qaadaa dhaladaasaa lagu shubaa waa dhammaate shaqo kale anagu kuma lihin waa dhammaate